injineer cabdixakiin cabdilaahi xaaji cumar camey madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland oo dhowaan soo gaadhay magaalada buuhoodle ayaa si weyn maanta loogu soo dhoweeyey magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn iyadoo lagaga hortegay meel ka baxsan magaalada wafdiga uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland injineer cabdixakiin cabdilaahi xaaji cumar camey waxaa ka mid a guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka puntland xubno ka mid a golihiisa wasiirada iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka puntland madaxweyne ku-xigeenka ayaa markii bulshada uu soo gaadhay waxa uu kula kulmay deegaanka riiga oo ka baxsan buuhoodle halkaas oo salaan sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada intaasi kadib waxaa loo soo gelbiyey gudaha magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn iyadoo dadweynuhu ay isugu soo baxeen garoonka kubadda cagta ee xabado halkaas oo shucubtooda ay ku cabireen waxaa halkaasi bulshada kala hadlay ka hor madaxweyne ku-xigeenka cuqaasha isimada iyo waxgaradka gobolka cayn kuwaas oo u sheegay madaxweyne camey inay diyaar u yihiin wax kasta uu ka codsado cudud iyo ciidan labadaba ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiin cabdilaahi xaaji cumar camey kaas oo ku dhawaaqay in buuhoodle uu yimid oo keliya inuu ka helo cudud ciidan iyo calaf si deegaanka looga saaro maamulka somalilan oo gacanta ku haya qabo ka mid a gobolka sool madaxweyne camey ayaa ugu horreyn u mahad celiyey dadka soo dhoweeyey isagoo oo sheegay in lagu yiqiino dadka reer caymeed iyo dadka sool sanaag iyo caynba gobonnimada sharafta iyo soo dhoweynta madaxdooda way ka mid yihiin xildhibaano way ka mid yihiin agaasimayaasha madaxtooyada waa wafdigii ugu ballaadhnaa ilaa iyo dowladda puntland intii la dhisay 20 sannadood waa wafdigii ugu ballaadhnaa ee yimaada magaalada buuhoodle iyo xarunta gobolka cayn mudana madaxweyne kala horreyn halkan isugu nimid 24 saacadood soo dhaafnay waxaad joogtay gobolka cayn xilligii hore aad noo timay meydii hore waxay ahayd xilli xun oo xanuun jiro abaarina jirto maanta waxaynu ku jirnaa maalin barwaaqaa dadweynihi wata odayaal dowladno garaadada culimaauddiinta kulli wakaa soo dhaweynaya soo dhawow baan ku leenahay madaxweyne dadkii shacabka ahaa ee aad noo doorateen oo kuwaad soo dhaweynaya rag baa gabayga leelleeliya allaahin ka idlayn laqwi ma aha ee kaygu waa ligiyo miisaan laqbadiyo araartaydu waa lebankii hoobaan laqbadiyo araartaydu waa lebankii hoobaane teer iyo liqaagii hayee baa lay marti ahaaye aan loo yar daacad u dhashay iyo liidar ma ahaaye raggii maansaweydhka u siday baa looxa ii dhigaye waxaan ahay lodkii aadan carab liisanka u jaray waxaan ahay lodkii aadan carab liisanka u jaraye maantana waxaan loogayaa kaad u lahateena lingaxan ka furayaa muddu laabka yirine ninkii hadalka liishada rabow la qabso weedhay miciyaha libaax duurin kale wuu lisanayaa isagaba ninkii lurugu tagay wuu lu go'ayaa daraawiishilowgay dhigtaa loolan diriireede ama cadowga loogay fardaha leedda ku eriyaani luwaa janana laydhoon askari laban legdoonaya inta leyli jabisaha ka badan lagaya aalaafte waxba iyo hartiga liigayaa igu lamaanaane ama libintay daaroodisiin laabkaciyo hiile la yaab ma laha ii doorhkan ligaloodi keligaay aniga iyo luduucahiisa waa legdamaynaay miisaanka iyagu waa midaan leexashaaqoone waxa liidka iyagu saaran yahay alaabta unnade laagaha qoryaale iyo markaan labida weydaarso laagaha qoryaaliya markaan labida weydaarso laamiga hargeysiya berbere liifa ha u dumee loor badhantigii daba socday iyo laaran iyo koofil waa taanu laalaabi jiray tan iyo laalaysi lidigii colaadaydii baa loogu dawgalay intay aniga igu loohan yihiin lumiyatoodii nilla kuma lifaaqni ee ama lay hadsanayaaygu waad aragtaa shacabkaagii halkuu taagaya waad aragtaa waxaannu diyaar u nahay wax allaale mudane madaxweyne waxaad u baahantahay baannu diyaar u nahay
haddaad xoolo doonaysa diyaar baan u nahay haddaad xudud doonaysa diyaar baan u nahay haddaad tignika doonaysa diyaar baan u nahay waxaanu diyaar u nahay nimankii annagu aanu isnaqan inaanu annagu labalagdaysano annagu aanu haddii bidakadilay qori turan aanu doonay insha allah haddaa la ka dhigo buuhoodle hadduu dagaalka galana wallaahi waxaa loobay ilaah baa loobaaye inay yaacayaan waxaad ka rabtaynaa insha allah bismillaah kalimiyada u diyaara waxaan kaloo ilaahay ugu shukrinaqaya oon ku shukrinaqayaa maanta ummadda aad dhex taagantahay haddii ay isku niyo tahay oo waxaad doonaysa ay doonayaan baan ilaahay ugu shukrinaqaya waxaan dadka islaamka in la nabadgeliyo waa ilaahay baa faray dadka wuxuu hayay dadka isnabadgeliyo wuxuu ka dambaysiiyey loo xijiyey ninka ku nabadgelin waaya in haddii aadan ka hortagin oo iska qabano maatadaada iyo carruurtaada ka difaacin qiyaamaha waa lagu weydiinaya waa mid furan marka hore waxaan leeyahay war naga noqda war waa bil rabadaan war ninku wuxuu doonayaa meel aan ahayn waa dhibaato war wuxuu waqti rabo maaha dadkan sanaagiyacayn waxaanu halkan ku soo bandhignay maanta oo ka caddaynaynaa shucuurtayada ayaanu ku soo bandhignay inaanaan ka mid ahayn jamhadda soomaalidiidka ah inaanaan ka mid ahayn oo aanu ka madax bannaannahay baanu halkan maanta ku soo bandhigaynaa madaxweyne waxaan leenahay shaki baanu qabnay markii hore shakiga aanu qabnay wuxuu ahaa puntland inaanay dagaalamaynin baanu shaki ka qabnay shakigii waa naga baxay oo inay dharbaaxad ku geysatay baanu aragnaa annaga waa ma garanaysaan reer buuhoodle ama gobolka cayn baanu nahay taaka kama joogaan jabhadda soomaalidiidka iyo deegaankayagii ciidamada qalabka sida dhammaantood waa muuqdaan inay dad muwaadiniina ay calankii soomaaliya iyo puntland ay tirtirooyin ku wataan alxamdulilah waxaan leenahay inaan ku darayaa aad baan ugu farxsannahay tallaabada ballaadan ee ay qaaday ciidamada puntland ee qalabka sida ee ay ku dhufteen dharbaaxada aad iyo aad u xun gumaystaha SNM. allahu akbar allahu akbar بسم الله الرحمن الرحيم سلام مبارك كاركن سامبا مدحويني وحيينك بلان وابريين فانت وحان نبارك قدرينا وادوهم وشحن ولا لهين الله سبحانه لنبايكي ونسوقاني وانا نعركيسا هدي إلهي نفط النوداي بشهر رمضان بليل هدي إلهي نفط النوداي وانا نعركيسا وجينا نسوع نويقا ولا لهينا هدو إن بدن با waxaan maqalnaa sheegaan bay arkaysaa waxaanu idinka warramaynaa waad maharagtaan inaynu saaka qura soo daba baxno ma aha xaaja meeshay maraysa waad ogtihiin reer buuhoodle xaaja meeshay maraysa waad ogtihiin xadgudubna cidna ku samayn mayno xaqu dagaalan baanu nahay xaqu dagaalan baa tihiin laakiin waad aragtaan xaajo waxa rag ka damcay waddanka waxa ragini ka damcay waxa rag waddankan ka damcay waxa dadka magaciina sheegtay iyo waddankii intii ayna haynin degay ee idinku dheeray ee aan 20 awoodda gabayneen waxa rag ka damcay waad ogtahay inta baanu sugaynay soo dhawow baanu ku leenahay madaxweyne waa ka waraynaa hawtaad u socoto waxaan rajaynayaa waad aragtaa buuhoodle dadka waxbaa loo kala sheegi jiray maanta aanan waxba tari maayo dadka waxbaanu tusaynaa waad aragtaan reer buuhoodle waad aragtaan reer puntland reer buuhoodle waad aragtaan cidi kama maqna inta maqanna kamaradaan qabanayna waa garoonkay togan yihiin marka hore waqtiga waa soo dhaweynaa marka labaadna waxaan halkan ka caddaynaynaa oo mar walbaanu ka caddayn jirnay haddana aanu ka caddaynaynaa maamulka somalilan in aanaan wax xidhiidha iyo wax wacdiya iyo wax dowladnimaa iyo wax naga dhexeeya ayan jirin aan islaamnimo iyo derisnimo aan hayn waad ka waraysaan isimada qaybsan baa la odhan jiray
hadalladii ugu dambeeyey laba gala jaamac 24 saacadood ay ugu dambeeyeen hadleen hadalkoodu waa la hayaa hanaga bixin bay yidhaahdeen intii kalena horey u hadashay waxaannu halkan ka caddaynaynaa inaannu mid nahay waxaannu halkan ka caddaynaynaa inaannu madaxweynaha dowladda puntland professor allah yasallim ayaa soo salaamay فريد يكاسي وهم لما عليكم وقال لك كمان وقال لك وأنا في بيان أنت من علي يا فلان ما يكسر على هذا يا أمين كلامك كلامك إن الله لا يدور وفرصة تاعي هذا أنا غير مولاري لما كان هذا أنا الولي تقال تروح كده ما يقدر لها وردارود بس وقارن سجن وفي نجد لداي وحرنا جمدين ولا نبغى نسقى ليش كل وانا كهشينا وانا ما كان حاجسي حوار شعره وانا اسنقانا شارنا وانا اسنا مركان دونا وانا كهشينا لكن هبك uu hadlayo min qaraar hore u galay maaha ninkaan sheegaya runtii waxaan dilayaa waxay doontaa ha ahaato hadaladiisii waxaan qirayaa dawlad kaamil in looga tagay isaga waxaana yiri Ciro Cabdiraxmaan Ciro yiri maanta isagoo 6 bilood joogay iyo waxna sheegaan halka uga baxa dadka ummadii kale oo lacagta mariyay noocay doonaan bahayeen ilaa heer buu maraya dumariyowgii inuu xidho oo laayo waxaa yagoori ilaa iyo guumays iyo og waxaan uga kala duwan yihiin ma jirta haddii halkaa fadhiya ama dib loo soo kiciyo oo leeyahay gambadhaa la keenaya wax u dhaxeeya haba yaraatee ma jirto mana qaadan doono mana qaadanayno wixii saa ku sheekeeyeen been ka soo qaada waa been oo run ah وحوي هير بيتاجن تمانين دوي توحان والنفل عارق وهبال وين والنفل عارق هاي قفكي هلا ولا كهلا تدنمو كهلا إسلامي وهلا شيل كالجيلية لون حمايو رجع الدمر يا عيال عرور نعرب والحرية وحال ليش ما أنت ليش بقول يكنتم بمريان حرقة iyo siideyntii waa nin dalka ka baxay askartiisiba waxay samaysay inay iibsato konton baa lagu bilaabay xalayna 150 marayaan qofkii lagu sii daayo war mas'uul xoolaha la idin gadanaya in loo galaana waxa weeye saxaafadda tiifiyadii ka hadlayay kullu waa la wada xidha dimuqraadi baan nahay sidan baan nahay aleelay taasaa beena waa wada xidhay waxaan dii sheegayaa kulligeen inagoo mid rag iyo dumar qof waliba mas'uuliyadda barta uu leeyahay ka qaato Puntland waxay ballan qaadaysaa inuu madaxweyne ku-xigeenkii Puntland inta la xoreynayo dalka dagaalkaasi inaanu istaagin baan ballan qaadaynaa horena waa maaragtay si kastaba ha ahaatee madaxweyne Cami ayaa ku dhawaaqay inaanu joogsanaynin dagaalka Somaliland waxaana uu sheegay in dagaalkaasi uu joogsanayo oo kaliya marka ciidamada Somaliland ay tagaan deegaanka labada gaatama oo ka tirsan gobolka Togdheer Axmed Maxamed Nadiif Kalsan TV Buuhoodle